madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdiga uu hogaaminayay galabta ay ka soo kicitimeen magaalada Muqdisho garoonka Djibouti waxaan soo gaarnay isla galabta waxaana si heer sare ugu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalkan Jamhuuriyadda Djibouti mudane Cabdiqaadir Kaamil Maxamed iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo xubno sare oo ka tirsan xukuumadda iyo golayaasha Djibouti Djibouti iyo Soomaaliya waxay isku yihiin hadda ma aha waxaan halkan kaga sheekayn karno waa dalkeeni labaad waa dal markii aan tabarta iyo taagta iyo talada haynay aan xoog badan gelinay waa dal markii aan liidanay aad noo soo garab qabtay 19 sano ka horna halkan magaalada Carta ee dalka Djibouti waxaa guul la taaban kara laga gaaray shirkii Jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle markii uu talada dalkan qabtay oo ku baaqay in Soomaaliya dawlad loo dhiso marka mustafarkan waxaa diiradda lagu saari doonaa on xiriirka walaaltinimo iyo iskaashi iyo saaxiibtinimo iyo dhiig wadaag iyo hiilka joogtada ee walaalaha Djibouti ay noo muujiyaan sanadihii u dambeeyay inaan sii dardargelino sii xoojino inta ugu muhiimsan madaxweynuhuna madaxweyne Farmaajo wuxuu berri wada hadallo dhinacyo badan taabanaya la yeelan doonaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle muhiimadda ay noo leedahay inaan Djibouti imaano inaan ku soo noqono waa dal walaal ah waa dal hiil ah haddana lafdhabar u ah amniga Soomaaliya oo Djibouti waxay ka tirsan tahay ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM waxyaabaha lagu lafaguro wada hadalladaasna kolley markay dhacaan aan idiin soo sheegi doonaa laakiin hadda waa nabad mid waana insha Allah booqasho xiiso leh noo noqon doonta haddii ay beedmo